xogayihii golaha wakiilada Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka qayb galay shir muhiimad gaar ah u leh qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Sierra Leone. Magaala madaxda dalka Ghana waxaa si rasmi ah uga furmay shirka baarlamaanka Afrika ee dalalka xubnaha ka ah ururada barwaaqa sooranka iyo Commonwealth Parliament. kaasoo ay ka qayb galeen 15 wadan oo xubno ka ah ururkaasi. Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka mid noqotay ka qaybgalayaasha shirkaasi waxaana hogaaminayay wafdigii ka qayb galay xogayaha guud ee golaha wakiilada Somaliland mudane Cabdirasaaq Siciid Ayaanle. wafdiga Somaliland ka socday waxa xogayaha ku wehelinayay Cawad Cali Maxamed, agaasimaha hadalka iyo qoraalka Cabdinaasir Cismaan Maxamuud, agaasimaha qorsheynta iyo Xamse Maxamuud Xaaji Muuse, agaasimaha xafiiska miisaaniyadda. shirkan oo socon doona muddo 5 maalmood ah ayaa waxaa diiradda lagu saarayay xoojinta iskaashiga baarlamaanada dalalka Afrika ee xubnaha ka ah barwaaqa sooranka, isweydaarsiga khibradaha, xeer dejinta iyo maamulka baarlamaanada. ka qaybgalka Somaliland ee shirkani ayaa noqonaya tallaabo muhiim u ah dhanka diblomaasiyadda baarlamaanka, taasi oo kor u qaadaysa muuqaalka iyo doorka Somaliland ku leedahay madalaha caalamiga ee xeer dejinta. waxa kale oo ay fursad u tahay in lagu xoojiyo xidhiidhada iskaashiga mustaqbalka ee baarlamaanada xubnaha ka ah ururkani taariikhiga kaasi oo ay ku midaysan yihiin dalalkii uu hore u gumaysan jiray Ingiriisku. si kasta ha ahaatee shirkan ay ka qayb galeen wafdiga uu hogaaminayo xogayaha golaha wakiilada Somaliland ayaa muhiimad gaar ah u leh qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. warsame Kaafi Cabdirashiid.